maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda awood dowladna ku wareejinay waxay ku eedeysan yihiin inkaarin ku dhacdo hubaysan oo xirfadaysan oo si xirfadaysan dadka waaridkooda ay u sheegayeen in la afduubtay sidaas daraadeed dadka waaridka ah ayaa loo sheegay lagana dambeeyay inay lacag afduuba waxay ka mid noqotay tabaha iyo xeeladaha ciidanka booliisku isticmaaleen arrimaha noocaas laga hortago waxaanu ku guuleysanay inaan gacanta ku soo dhigno eedeysanayaashii dhibbanihii oo iska dhigayay qof eedeysana ah qof dhibbana ah iska dhigayay laakiin ahaa qof wax ka og falku siduu u socdo si waaridkiis lacag looga qaado hadhowna lacagtaas loo qaybsado arrintaas waxay noqotay waxyaabo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda ku soo laalaabtay dhashaada alla bi'i iyo wax lagama dheefo iyo tacab khasaar hadaa maqasho waa kuwaan oo kale bal fiiri intay dheer la leeg yihiin iyo sida loogu soo tabcay iyo maanta markii la filayay inay maartay lagu nasto oo ay horumar soo kordhiyaan waaridkoodna ay ka mahadnaqaan tacabkoodii ay ku farxaan oo ay ku faanaan waxay noqotay inay saldhigyada ka soo daayaan oo maalin walba la eryanayo oo iyaguna ay shacabkii luuqyada iyo gidaarada iyo dariiqyada u taagan yihiin oo ay furanayaan oo baadayaan hala saaxiib yaal waad salaamaya soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga oo walaalkeen Sahal Cismaan oo aad kala socotaan bartiisa YouTube-ka Fikir Same Studio walaalaha nagu cusub soo dhawaada leeyahay haddii aadan kanaalka hore subscribe saar please barnaamijka hala dhiirigeliyo muuqaalka hala siiyo hala share gareeyo kani waa wacyigelin iyo run sheeg kani waa wacdi toos ah weeye kan xooga hala saaro oo horey ha loo qaado muuqaalka sida aad la socoteenba ama aad aragteen oo aan idin tusayba waxa weeyaan waa aragtaan dee masiirka ummadda Soomaaliyeed dee masiir kale ma lahayn awalba Soomaalidu waxbay dhali jirtay wax kale ma soo saaro gawaari ma soo saaro diyaarada ma soo saaro cuntooyin kala duwan ma soo saaro wax aynu soo saarno dad baa adigu kow ka ahaa يعني oo waxa ugu muhiimsan oo ninka iyo naagta Soomaaliyeed yaqaanaan oo ugu muhiimsan iyaga wax kale wajiga ma siiyaan ama kuma fikiraan inay caruur dhalo bay ma garanaysaa ku fikiraan wajiyada dhalinyaradan aad arkaysid ee labeentu ay ka duxayso waxaad aaminaysaa markiiba inay yihiin kuwa nabdoon oo wax dhibaato ah aadan kala kulmayn hase yeeshee haddii ay kugu helaan jid cidla ciirsi ah adiga oo hooyaad ah naftaada halis ayay ku jirtaa hantida aad wadatana waa ka sabraysaa waa koox burcad ah oo la baxday magaca ciyaal weerada kuwaasi oo aan marnaba u naxaynin qof bini aadam ah kooxdan waxaa ku jira shakhsiyaad lagu tuhmayo inay xalay si xun u waxyeeleeyeen heer ilaa iyo sanka iyo afka uu dhiig ka keenay wariye Soomaali niyad jab iyo murugo ka weyn ma jirto ilmahaaga ku soo tacabtay ee aad dhaxanta ma gartay dhaawaca gaajada soo jeedka wax walba aad la soo martay sidii aad u korin lahayd isaga intii uu weynaaday oo dheeraaday oo shaar iyo macaws dheer gashtay oo asri maanta alla ilaahay banaanku maray oo isaga wax laga sugayaa inuu maartay uu noqdo kaalin qaad ama kaalin gal oo boos weyn buu ku galayaa aad islahayd oo saldhiga laga soo waco oo lagu dhaho wiilkaagii baan xalay dariiqa ka soo qabanay isaga oo islaama ka furanaya dulcooda shilimaad ka furanaya ama dariiqyada moobilada ciyaalka kaga qaadaya dhalinyarada ku baadaya ama magarasa waxaas xun sameynaya ama wax dilaya ama isbaara u taalo ama argagixisa ilaahu tacabkayaga ha khasaarin oo dhashayadana ha bi'in ma garanaysaa waa wax aad iyo aad looga murugoodo oo u baahan in dawlad iyo shacabba loo wada istaago oo waalidiintuna ay caruurtooda u warhayaan waa hubaatee hooyo kasta iyo aaba kasta ilmahooda way yaqaanaan way ogyihiin waxa uu sameynayo ama waxa ka suurtagala sababtoo iyaga koriyay waxa weeye waa inay hoos u sii eegaan oo ay ilmahooda la socdaan waxyaabaha ay markay ka maqan yihiin iyo markay suuqa jiraan iyo marka ay ma garanaysaa ishoodu ay ka wareegto waxyaabaha qabanayaan waa inay raadiyaan oo baaraan oo ay dhug u lahaadaan baan ka wadaa lama ilaalin karo tuuga waxa la yiri tuuga kula taal tabteeda lama helo ma ahayd wax saasa marka waan ogahay tuug intuu warwareegi karo ama isqarin karo isqarinaya laakiin luuqamaro laamigu imaaha ma ahayd wixii la oran jiray mise laamigu imaada ugu dambeynta wadiiqada yar wadiiqada weyn bay ku geysaayo haddaad ayaama dhuumato dee ceeb lama qarin karo waxa weeye nin bidaar leh koofiyad intee xirnaanaysaa marka waxaan ka wadaa ilmaha
ilmaha ha loo warhayo oo ha loo dhowaado oo magaranaysaa ha la ogaado waxa ay qabanayaan intaan ceebtaas oo kala dhicin. hadda fiiri dhalinyaradaasi waa konton iyo wax weeye sida idaacadda laga sheegay. konton iyo waxaas isku kiis baa loo soo qabtay, waxaana laga soo qabtay degmooyin kala duwan oo gobolka banaadir ka tirsan, iyagoo falal xumaan ah gacmaha kula jira oo tuuganimadu kow u tahay burcadnimadu. wax aan la yaabayba muuqaalkan ku jiray, muuqaalku aad buu u dheeraa laakiin wax yar baan kasoo qaadanaynaa haddii rabbi idmo. marka waxa weeye walaalayaal, macnaha hayaan wax la iska dhalin keliya. waxaan ugala jeeday Soomaalidu wax kale ma soo saarto, awlaad bay soo saartaa, laakiin awlaadu maahan qof madax madow luga iyo gacmo leh oo wax cunayo hadlaya keliya maaha. waa inuu qofku quality leeyahay. qofku waa aad soo saaraysaa, ilaahay ba horta dadka sameeya, laakiin dadaalka iyo akhlaaqda iyo tarbiyada gurigu waa kow, waa iskuulka koowaad. intaadan malcamad iyo iskuul geyn ilmaha, adigu guriga wax ku soo bar. sidaad ilmahaaga ma garanaysaa aad sanad jir u qaabayso buu 50 jir ahaanaya oo 20 jir ahaanaya. koriimadu iyo waxbarashada koowaad iyo caqliga waa guriga. ilmahaaga waqti la qaado, ilmahaaga wax fiican bar, ilmahaaga maskaxdiisa dhis, ilmahaaga waxa dhistaa teeda kale hankiisa. ilmahaaga waxa bartaa waxaan malihid, waxaan adaale, waxaan waa sax, waxaan waa qalad intuu yar yahay. haddii kale 25 jir 20 jir 16 jir 18 jir buu sidaa ku noqonaya. waa wax aad iyo aad looga argagaxo. muuqaalkan ma garanaysaa keliya maahane, maalin kastaan maqlaynaa ciyaal weero, dad bay dilaan, xataa mindi baa la iska kaa dhex dhigaya dheeraatay. wuxuu kugu dilay mataqaan, wuxuu kugu dilay 5 shilin oo jeebkaaga ku jirta ama mobilka xunka aad ku hadlayso. naftaadi dhan bal qof naftiis muxuu ku dhaafiyay? biri adduun iyo aakhiraba uma wanaagsana. waxa laga yaabaa maalin qadaa inay xataa u goyn waxa uu qofka ku dilay ama qofka uu ku dhaawacay oo ma garanaysaa dhibaato weyn ugu geystay. warheedhe sidan ha la isu dhaamo oo caruuraha ha laga warhayo oo dadka orientation iyo wacyigelin iyo hanuunin ha loo furo oo iskuulada ha laga wacyigeliyo oo guriga ha lagu wacyigeliyo oo degmooyinka iyo community iyo goboladu ha is wacyigeliyaan oo bulshada yaan booliis kaliya laga sugan inay sidaas oo kale hadda meel tuu ka soo qabtee. bulshadu ha u istaagto, rag iyo dumarba, oo dadka caqliga leh iyo dadka wax bartay iyo dhalinyarada ma garanaysaa bulshada u dhaqdhaqaaqda oo maaragtay oo active ka ahi, ama kuwa social media ku jira, ama kuwa wariyaasha ah, ama kuwa TV-yada jooga, ama cid walba, iyo kuwa jaamacadaha dhigta iyo dadka quman oo caqliga saliimka ah leh ha ka hadlaan arrin ciidan kaliya wax ka bedeli karo maaha. waa arrin u baahan in dadka la bedelo maskaxdooda, in maanfur loo sameeyo dadka oo laga wacyigeliyo xumaanta, oo la dhaho waxan wax fiican ma aha, oo dadka loo sameeyo. dowladuna waa inay ku dadaashaa inay shaqo abuur u samayso dhalinyarada noocaas oo kale ah, oo dhalinyarada ay maartay shaqo abuur u samayso si looga mashquulo. waxaan horta u geynayaa mararka qaar waa loo garaabi karaa dhalinyaradii markii qofkii 20 jir yahay wax u qabtaana jirin iyo wax cid wax u dirsataa, hadduu shaqo doontana aanu si fudud kusoo helin, oo musuqmaasuq, isdabamarin, iyo qabyaaladii ay shaqooyinkii ka hortaagan tahay. hala fududeeyaan leeyahay, dowladuna xoogga ha saarto, iyo xoogga saaran kaliya soo qabasho iyo ciqaab, laakiin siday dadka maskaxdooda iyo caruurta iyo dhalinyarada ay maskax fiican u heli lahaayeen, oo ay nolol fiican jir ahaan iyo maskaxaanba ay u nafaqayn lahayd oo u korin lahayd. dowladdu iyadaa mas-uuliyad ka saaran tahay. dadkeeda ha u samayso shaqo abuur, waxbarasho ha u samayso bilaasha, shaqooyin dadku ay mushahara ka helaan, xirfado ay ku shaqaystaan hala baro dadka, skills sidii dowladuhuba samayn jireen ama dowladuhuba sameeyaan. bal ila daawada muuqaalkiiban xoogaa kusii soconaynaa haddii rabbi. maxkamadda gobolka banaadir, maxkamadda awoodda aan ku wareejinay, waxay ku eedeysan yihiin inkaarin ku dhacdo hubaysan oo xirfadaysan oo si xirfadaysan dadka waaridkooda ay u sheegayeen in la afduubtay. sidaas daraaddeed dadka waaridka ah ayaa loo sheegay lagana dambe inay lacag afduub ah. waxay ka mid noqotay tabaha iyo xeeladaha ciidanka booliisku isticmaalo in arrimaha noocaasa laga hortago. waxaanu ku guulaysanay inaan gacanta ku soo dhigno eedeysanayaashii dhibanihii oo iska dhigayay qof eedeysana ah, qof dhibana ah iska dhigayay, laakiin ahaa qof wax ka og falku siduu u socdo si waaridkiis lacag looga qaado, hadhowna lacagtaas loo qaybsado. arrintaas waxay noqotay waxyaabo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda ku soo laalaabtay. quduro laba qadaad leh hadaan maqli jirtay waa tan oo kale. kuwaan aba ugu daran tuug noqoba, laakiin tuugii ugu xumaa waxa weeye bal fiir gurigiisa dib ugu noqday. awal wax ma cafinayn, laakiin waa anaha meesha ay another level bay dhahaan waxyaabaha saan oo kale cajiibka waa oo foolxumada badan oo fawaaxishta ah oo maartay aadka iyo aad qubxiga u ah oo xun
waan la qaadan karin bal fiiri hooyadii iyo aabihii soo koriyey oo isaga shalay maradiisa iyo masruufkiisa iyo iskuul fiigiisa la daalaadhacayay ya buu intuu wax u soo kordhin lahaa ama culayskiisa ka yarayn lahaa buu iyagii dib ugu noqday oo maqsar sii gelinaya oo wuxuu dhahayaa waa lay afduubtay lacag baa laga qaadaya lacagtii buu tuugada hadhow la qaybsanaya this is another level oo tuuganimo ah weeye waa wax weyn oo u baahan in maaragtay laga ducaysto oo dadkan cashar loo tufo xirsiya loo xiray rabaan sidan Soomaaliya kuma hagaagayso waa jiilashii dhaxli lahaa anagu markaan dunidan ka tagno oo gudbin lahaa dhaqankayaga iyo Soomaalinimada sii sidi lahaa oo hidasida fiican noqon lahaa oo wax fiican iyo generation kale oo suuban oo toosan oo quman soo saari lahaa way kuwa sida u dhaqmayaan inkasta ay Soomaalidu tiraahdo weynaada wanaagsanaado hada kuwa kornimo uma dhinna kuwan waa 20 jiro laakiin inta badan qofka yaraantiisa xun markuu weynaado xun baa iska bedela oo aqli baa u kordho oo ma garanaysa laakiin haddaan awal waxba ku jirin faaruqnimo la koraya jirka buu laga korshay in laga korshay baa dhici karto aan waxba lagu soo shubin wixii lagu soo shubayna oo intii uu arkay xumaanta ahayd uu sameeyay uu tahay laakiin dadka yaa laga quusan kuwa dhaqan celin loo sameeyo xabsiyada xataa waxa lagu baro ha loo furo hanuunino sida idin sheegay oo yaan looga harin sida kaliya intii la ciqaabo ama lacanaanto yaan la sii deyn waxa lagu shubo ha laga shubo xumaanta ku jirta wanaag ha loogu bedelo waa wax magarasa naxdin leh oo aan la dhageysan karin dhagaha iyo indhaha toona aan u fiicnayn bal ilmaha hooyadiis iyo aabihiis meeshuu caawin lahaa mission iyo qorshe intuu tuuga kale ula soo tashto tuuga kaba taan lahaa idan lahaa tuuga kula tabteeda lama helo miyay ula soo tashto si waaridkiis loo dhibaatayo lacagta looga qaado oo isagu uga helo qismigiisa iyo qaybtiisa uga helo sheerkiisa uga helo waa wax aad iyo aad u naxdin badan walaalayaal halkaas ayaan maraynaa ee baashu ka degaysa waxaas oo dhanna haan gunta laga unkaayo waa qoyska hooyada iyo aabaha baa dhibaatada ka soo bilaabataa iyagii baa idaa iyo ku dayn ma iskaga dhalay iyagii baan heshiis ahayn ilmaha waxa laga yaabaa inuu problem iyo family is haysta iyo mushkilad iyo rafaad iyo nolol aan waarid aan diyaarsanayn ma garanaysa waa dareemaysan ma raba inaan hoos ugu dhaadhaco waxyaabaha noocaas oo kale waa fahmi kartaan aad iyo aad ha looga digtoonaado hadaa kuwii hore hadaa xataa aadan ku tabcin ka feker kuwa kale oo dhali doonto hadaadan chance iyo waqti u hayn ilmaha geliso ka joog oo waxba mushkiladda ha sii kordhin wax kale ha sii dhalin tuug kale ha sii dhalin ama tuugad kale inkastoo aan gabdhaha iyagu ay sharaf leeyihiin oo inta badan majority boqolkiiba 99 xabad qowsaara waa laga heli karaa laakiin boqolkiiba 99 dumarka iyagu waa wanaagsan yihiin ee dhibaatada oo dhan faarax bay ka bilaabataa faarax bayna ku dhamaataa mushkiladda oo dhan wax dumiyay kii dawlad dumiyay kii argagixisa kii wax dilay kii tuug ah kulli waa faarax waxa la yiri run iyo ilkaba waa la cadeeyaa hadii aanan run sheegina been waxa la yiri qofka run sheegina been ba u qarsan marka xabad anaga surmindiya gabdhaha waa ku jirtaa laakiin ragga iyaga anagu haddaan ragnahay ragga Soomaaliyeed baa dhibaatadu ka bilaabataa iyagana ku dhamaataa aad iyo aad hooyooyinkana day waa inay naga quusanayna wacyi geliyaano de ruuxadooda waa warshadii ugu muhiimsanayd weey oo anaga dhalay oo anagana soo barbaariyay waa meesha barbaarinta ka hadlayay aan ugu dadaasho iyo naga quusan magaca Soomaali ma doonaysa wuxuu ka bilowdaa dhimo oo hanoolaan libaax mar alla markaa dhibato Soomaali dhow ku amaanas inta nooshaan ku caayan halkaas waxaan farfiyo waxa dhibaya ilaahay sababtoo iyo abuuray qabiilka aan ahay waxaan u sheekeynay iyo farxadda aan ku jiro way dhibsanayaan dadku waxay ku koraan baaro ciil bangad naxay janhado naxalad qurun bayntu ku soo koran qalbiga dadku soo qalbigiisa qofku Soomaali ugu yimaado waa aad bilaysta shaydaanka lagu sheegay waa Soomaali magaca Soomaali hadda markii waa magac malag way malag waa hanoolaan Soomaalidu waa dadka kaliya oo aan jeclayn inay ka sheekeeyaan xayaato kaladka ay ku nool yihiin war Soomaali maxaa lagu nool yahay hadii wax diin haysta Soomaali ay duwalaan joogan qurba may ka sheekeeyaan ninka magaciisa ma aqaananiyo ninka ma garanaysaa anu magaciisa ma aqaano dhowr mar baan social media ku arkay muuqaaladiisa yaani waxyaabo badan iyo qodobo muhiim ah oo run abu ka hadlaa Soomaalidu runta ma jecla Soomaalidu runta ma jecla oo way ka warwareegaan inta ka warwareegi karaan xaqiiqada waxay ku leeyahay inaga taa magaalada indhaha la isma saare war hadaan nabarka la damqin ma dhaymaayo waa inaan runta isu sheegnaa waxaan laba qodob baan anu ka qoray muuqaalkiisa mid waxa weey inaynu xabaasha isugu roonahay oo aan dhimashada isugu heelino laakiin nolosha waxba isugu tarin
iyo inaynu nahay dad indhaha ka qabsada inay sheegaan waxa xun oo aan runtaba la soo agmarin karinba oo aan xaqiiqadaba ka hadli karin oo xaqiiqada ka fog oo faan iyo tororog iyo fadhi ku dirir maahane aan xaqiiqo shuqul ku lahayn lagama yaabo maanta dhan haddaa dhex fadhido dad Soomaaliyeed oo meel jooga inay wax wanaagsan bay ka hadlayaan kama hadlayaan weak pointskeena kama hadlayaan dhibaatadeena kama hadlayaan nabaradeena kama hadlayaan qaranjabkeena kama hadlayaan qoys dumisteena kama hadlayaan dhibaatada ina haysata oo maantin ilaa cirib ina saaqday iyo sunta ina ku jirta ee xumaanta ah oo argagixisada ah oo qabyaalada ah oo kala qaybsanaanta ah oo musuqmaasuqa ah waxaas dhan kama hadlayaan fan reer hebel xagaan waaban istagaalay waaba geel la kala qaaday reer hebel iyo hebel ba halka waxay kaaga sheekeynayaan waxay kaaga sheekeynayaan waa korka xaadis lagama yaabo inay gudaha ugu daadegaan wixii dhacay inay ka sheekaystaan iyo meesha wax ka khaldameen inay ka wada hadlaan lagama yaabo marka waxa weeye haddii aad sakaraad tahay oo jidka dariiq wadada dhinaceeda taalo waxa laga yaabaa inay 100 qof ku dhaafto oo aan la oran war ninkan meesha maxaa war ninkan ma wax loo qabto war ninkan waa dhibaataysan yahay ma garanaysaa oo aan waxba lagu qaban ama aad ahayd nin wanaagsan oo umada laf dhabar u ah oo ka ma garanaysaa waa wanaag ka taliya oo wanaag lagu yaqaan oo hiil iyo hooba leh oo maskax wanaagsan leh oo dadka wax u sheega oo dadka wax tara haddii aad ahayd laguma sheegayo lama oranayo xataa waa mahadsan tahay laguma oranayo intaa nooshahay laguma dareensiinayo inaad wax tahay lagama yaabo inay ku dhahaan walaal mahadsanid wax gal baa tahay booskaagii waad ka soo baxday karaankaagii waad samaysay kuma dhahayaan intaa nooshahay laakiin maalintaa dhimato horta waxa weeye maalintaas ammaan bugaag baa laga qoraya cirku meel daloosha ka soo dhacay kanuu ahaa balaayo ahaa saanu ahaa adigu ma ogid waa dhimatay naftaada ilaahay bay la jirtaa lagama yaabo in garab istaag iyo aad dareento inaad hawsha qabanayso hawl fiican tahay xataa in lagu dareensiiyo mahadsanid ma helaysid mahadsanid aa helaysa waxa weeye in xabaasha lagula ordo markii naftu kaa baxdo meyd baa yaal war meydka hala aaso waxaan ahayn ma yaqaanaan okay teeda kale 2 beri baa lagu wadayaa allah u naxariisto 2 beri ma dhaafayso sheekadaada hadhowdii markii waayada dambe ma garanaysaa mid baa buug iska qaadanaya dheer buu qoraya kanuu ahaa kanuu sameeyay waxaa samaysay beenna uu ku daraya dee weliba kan kaa qoraya mida isku reertiin kan kale kaama qoraya moogta mid cidiina oo reerka magacaa sheegato ku abtirsato ah qolada ilma qansax aad isla tihiin baa run iyo waxbuu ku quruxsanaya xataa maalin eedis arkin buu ku daraya sheeko dheer buu dhisaya waxyaaba noocaas khiyaali bay Soomaalidu ku nooshahay